markuu nabigu laysa almiskiinu ku leeyahay wuxuu u jeedaa inama almiskiinu wa almiskiinu alkaamilu fi lmaskana miskiinka dhabta ah ee curfan wa sharcan la jecel yahay in wax la siiyo waa ninka baahan ee dhibka qaba xaggana afgobaadsanaya ee is-ilaalinaya waynu soo maray xadiidkii laysa ashadiidu bisurca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab baad soo martee ninka kale shiddo iyo awood looma diidina waxaa loo diiday waxaa la yidhi ninka wax lagde ee nin rageedka waa ninka naftiisa hanta markay cadho iyo xanaaq yimaado la isqoonsado saa darteed riwaaya xadiidkule waxaa ku yimid laysa almiskiinu bihada tawaafi miskiinka dhabta maa midkan wareegaya isagoo xoogsanaya nabigu muxuu saa u leeyahy calayhi salaatu wasalaam laba macnay culummadu sheegeen macnaha koobaad ninkan wareegaya dawarsanaya dawarsigaasuba kaga baxaya miskiinnimadii oo xooluba tabcanaya niman baaba guryo ka dhista waad ogtihiin guryo waa loo soo joogay islii warkeeda waa la hayaa nin baa hadda kahor masaajidka naftu noogu keenay imaamkan la hadlo waxaan ku war ninkan waa ina baaba'shay salaadii baa laga tukan la'yahay bal intaad weydiiso bishii waxa ku filan weydii lacag 10 kun uu sheegtay dhacdac kalaan meelo kale ka helay guriga kiriisa laga bixiyo oo 7 kun oo shilin ah 15 kun oo shilin baan u ballan qaadnay bil walba inaan siino 3 bilood afar markaan siinayni uu soo noqon waayo markuu dhowr bood naga maqnaabo halkan soo istaagay xari imaam qabooso ninkii ma waa imaamka la shiray wuxuu wixii iguma fillo meelo kale aan ka waxaan heli jiray dhowr boqol oo kun marka masjidkan aan ka shaqeysan jiray nimay naftaad ii keenteen 15 kiina waan eeday iska kaydaayay lagu kala tag marka waa misaal yar way badan tahay may ogolo waa niman shaqeysanayo oo xoogsanaya way yaa Cabdinuur weydiiyay aminka hadda masaajidka ninka waa yimaada usbuuciiba mar buu soo dhacaa lama ka dhaqaajin karo dhowr waa 10 sano ka badan hadeen ka badan 20 ba ku dhaweyn almuhim miskiinka ka wareegay dawarsanaya baahidiisa wax kafeeyo umada ka helaya asagaaba su'aal badni iyo iimaan laan u sii wareegi mooyeen wax yar oo ku filan waaba helaaba taasi waa masalada labaad nin baahidiisa qarsadama waa nin sheeganayo banaanka soo dhigtoon xishoonin way labada arrimoodba ka kala ninka kala ka mudan waa in la siiyo magacii miskiinada ahaa laana ninka dantiisa ma sheeganayo waana baahan yahay ma wareegayo wax ku filan ma helayo idan kaasa miskiinka sharciga in wax la siiyo ah riwaaya marka xadiidku inama almiskiinu nabigu inuu toos u jawaabay baa ka muuqata laakiin markuu nabigu laysa almiskiinu alladii tarudduhu tamratu wala tamrataani riwaaya waxay tilmaantay qaaluu yaa rasuul allah fama almiskiin kii aan naqaan haddaad diidda nabi allow miskiinku waa kuma markaasuu nabigu u sharxay wa alladii laa yajidu ghinan yughniihi walaa yutafattanu lahu fayutasaddaqa calayhi ولا يسأل الناس إلحافا رواية كلي dadkan waxba aan weydiisanayn dadkaas marka yaa la rabaa in wax la taro wax loo qabto way maxaa yeelay dadku bani'aadamku bariyahan dambe in la isdareemo oo xataa la istooydo bay iska yartahay marka xataa haddaad baahidaada sheegato inaan waxba lagu qabanin bay iskaga badanta oo ceebtaadan la ogaado marka inaad iska qarsatood baahida ilaahay u dhiibato oo intaad ragcatay iska tukato ilaahay barido inuu aadamaha kaa kafeeyo gacantana wax kuu geliya ayaa kugu filan bariyaan dambe waxaa weeye xataa kii calaacaalahay baan ugu nafbaxahay hadda goor baa idinka sheekeeyey nin masjid ka istaagay war waxay siiya war saaka ma quraacan oo shalay wax ma helin oo xalay gaashaan ku bariyey oo maanta ma qadaynin waa iga liidataa suu u lahaa iyo masaajid dhowr oo isku maray galabkii dambe masjidu nuur inuu habaan u malay masjid sawti ku yaalay ku nafbaxay markay naftu qabatay baa loo orday dhakhtar baa la geeyey waxay nafaqadaray gaashu ninkan u dhimanaya oo waa lagu xabaal xusuustaan baan u malaynaya hawsha ayada marka baryaha naxariistii iyo danqashadii waa iska yaraatay marka ilaahay isku xidh rabbigaa iska bari alla isku xidh dacayd inay kaaga dhigan baa laga yaabaa waa qadiyadii muxuu ahaa ninkii ciraaqiga ahaa muxuu kariim alciraaqi محور لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم محور دباتا أدوك هاي ستي داوع كوية الله ضدك هاو شيغاني محاجرة
laa yu'limu اljurxu ila man bihi alamu dhaawaca iyo dhibku wuxuu dhibaa buu oo dareema ruuxa uu nabarku ku yaalla boogto ay ku taallo shakwaaka linnaasi yabna annaasi manqasatun waman min annaasi saaxin ila bihi saqam wuxuu yidhi haddaad aadama wax u sheegata niyahow aadamaha loo barya tagay wax loo sheegtay waa dulinnimo iyo liidnaan iyadoo sidaa tahay waman min annaasi saaxin ila bihi saqam dadku yaafayowba dhibkaad seen waa lagula qabaa nin walba meel buu ka bukaa baahidii baa baahday iska afgabaadso is astur rabbigaa subxaanahu wa tacaala wax u sheego fain tashkuu liman shakwaaka sacaadatuhu muxuu yidhi adafta jurxan lijurxika ismuhu nadam runtii wuxuu yidhi haddaad u sheegata dhibkaadii nin ay sheegashadaadaba sacaado u tahay dhibka aad sheeganaya baahidaad sheeganba iyuuba ku farxahaya kii inay hebel aha ma arag oo ay naftu ka baxaysaan arkay buu ku leehay in badan buu iswaalaya maanta way ka caddahay qoliyaan qarabanay wax lagu xaman jiray geelooda lama maro lama martiyo caana lagama dhamo adoo sakaraad oo marti ah haddaad geelooda ku soo baxdo wargeelu waayo waa geeli reer hebel iskaga lexay dheh maxaa jira dhiil caano weyn bay kuu lisaayaan markaad way kuu liso marka koobaad dhiilka caanaha haddaad dhammayn weydo waxay ku leeyihiin iimaan la'aan baa haysay gaajaba ma haynin suuqii wixii geynayaan oo magaaladii bay kaga warramay ceelashii geelu ka cabaya ka sheegi kii inay hebelaha ambamaan caano in la soo yidhi dhiil baan waxba uu cabbi waayaba iimaanku leeyahay gaajaba ma haynin bay ku leeyihiin haddaad dhiilkii heensato dhammaysana waxay ku odhanayaan inay hebelo maanta waxaana soo maray naftu ay ka baxayso hadduusan geeli annaga soo marin lahaynna lamama arkeen xaggeed ku baxsan marka waa yahay baladu xaggeed ku baxsan haddaad dhiilkii ebrisana kuu daran haddaad hambaysana kuu daran bini aadan saasuu iska noqday marka baahidaan iska asturato ood ilaahay u sheegato ayay ku fiican tahay